marka dooqo ka baaho haye xiriirka bilowdaaba toddobaad ka badan waayo kolba buuga noloshaada qof kala ku soo biin haye bil qofka la jaan qaado toddoba wiidan kala buud mid kalaad haddana beegsan oo booska kuu buuxin shalay kaa banaanaaday inta laba boglayntaadu tahay dibnaha baarkooda ama guur ka baqanayso cimrigaaga oo biiray iskaabula ka bixi maysa. bismillaahi raxmaani raxiim. ugu horreyn ilaahay baa mahad iska leh. halkan waxaan ku kulanay abwaan aad u qaaliyo oo mara fiican oon saaka isbaranay maasha allah. waxaa leedaa axmed raganimo. axmed oo labada heesooda ii la jeclaatay ta iskaabulada iyo ta dirbi jiifta waa laba kala duwan. ta iskaabulada midhaheeda ii horreysay horta fanan aad baan u jecelahay kulankaaga maanta aad baan u faraxsanahay. waa mahadsantahay maxamed oo ummadda ilaahay baan u jeceshahay inaan kulanno markaad sidaa aan kuu arko ayaa horta ninka abwaankaa muxuu qabanaya heestan waxay ka hadlaysaa iskaabulo iskaabuladu iskama canaanaysee fariin bay u diraysaa wacyigelina ragga haasawaha badan ragga dooqa ka baahay jacaylkiyooda isaguna intuu isbedelay 7 casho iska soconaya toddobaadka xiga labadii qof aan ishelin oo laba qof oo kale jecel yahay doonaan dabtan wuxuu marka dooqo ka baaho xiriirka bilowdaaba toddobaad ka badan waayo kolba buuga noloshaada qof kala ku soo biin bil qofka la jaan qaado toddoba wiidan kala buud mid kalaad haddana beegsan oo booska kuu buuxin shalay kaa banaanaaday inta laba boglayntaadu tahay dibnaha baarkooda ama guur ka baqanayso cimrigaaga oo biiray iskaabula ka bixi maysa. beentii isyeelyeelka markaad ka bixi weydo shaki badan kugu beermo bari aad galbeed moodo caafimaad ma lihid buux bal wadaanina caadaystay kolley ceeb ka bixi waaye bir ku qaba nafto waabi baradiyo samee reersan bisinkana u qabo maanta inta laba boglayntaadu tahay dibnaha baarkooda ama guur ka baqanayso cimrigaaga oo biiray iskaabula ka bixi maysa. iskaabultaasay leedahay cimrigaaga oo biiray iskaabula ka bixi maysa. iskaabulada horta waxaan leenahay wacyigelinta abwaanku idiin soo jeediyey horta dhulka hadhigina qaata waxa aad ii soo jeediyey qalbigaygana soo qaada darbi jiifta markaad la hadlaysay dareen rag badan oo saaxiib nahayna waan kugu soo hoganay bal noo akhri bal intaan. darbi jiiftu way dayacan yihiin kolba ciddii wax haysa iyo dowladdii jirta ayuun baana ka mas-uula waxay jiifaan goobo dayacan eyda ay guryaha ku haysanno ayaa ka nasiib batay dabatayagii baa hadlay waxayna dhallaan baanu hay dayacan cid dhowrtiyo waalid dhalay meelu dhigtay aanay jirin dhulaan eyduba hargelin muxuu waayuhuna dhigay dhulaan eyduba hargelin muxuu waayuhuna dhigay dadaa noo dhaga nugley maxaan u dhawaaqay fiid maxaa naxariis dhul sugay iyana dhug la-aan cidlada caways nagu dhaafayey dadkaba dhaayaha ku yaal dhankayga ma soo qabtaan dheegiyo dhabankay gudmo dhagxaantaa iyo toloo dhulkiyo ciiddaay dhalay maxaa dhamac laygu shiday uskuga dhariq laygu shubay maxaan dhaxantii qarqaray dhex galay lagu haygoo mugdiga idhi soo dhowow subxaan dharkiyo huga aan xidhaa dhooqiyo waa wada xadhkoo cadceeduna ima dhibto dhabti hadhka kama galee hamuun baan dhuunyada dadkaba dhaayaha ku yaal dhankayga ma soo qabtaan dheegiyo dhabankay gudmo dhagxaantaa iyo tolo dhulkiyo ciidda ay dhalay markaa calankiisaasuu hoos naban yahay dadkaa dhallinyartaa heestaas waxay noqon kartaa hees wacyigelin markaa ciddii garaad iyo adduun iyo caqli iyo maalba siiyey inay xaggooda soo eegto ayay heestaas dadka gaarsiin karaan. waad mahadsantahay ilaahay caqliga ku barkay. intaa waxaan ku dari lahaa cid walba xil waa ka saaran yahay dowladda qolo kama saaran shirkaduu ka saaran yahay qof kastoo dabiir leh inay darbi jiifta u naxdo xil baa ka saaran adiguna suugaantaada aad ku difaacday waad mahadsantahay.